Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada baxdayday barakada Rabbi korkiina ahaatee waa bahweynta waaya same. Waxaan maanta idiin soo jeedinayaa mowduuc aan muhiim u arkay in aan bulshadayda la wadaago. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan meel ku arkay qoraal u dhignaa saamaynta taban ee uu leeyahay ku adeegsiga laptopka dhabta. Kadib waxaan isweydiiyey muxuu dhib yeelan karaa laptop dhab la saaray. Isweydiintaasi waxay ii jihaysay in aan deegto dhiganayaal iyo qormooyin aan ka helay ilo xogeediyo aan wax badan ka dheefay, jeclaystayna inaad dadka igu xiran la wadaago. Ka hor daawashada muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa daawadaha qiimiga lahow in aad nagu soo biirtid adiga oo kanaalka YouTube-ka subscribe noo saaraya, Facebook-gana leeg noo saaraya. Saaxiib, soo dhawow mar kale. Muuqaalkanna mudnaantiisa u gaaro. Adeegsiga shay waxa uu leeyahay hanaan u gaara iyo waxyaabo ka dhasha haddii si kale loo dhigo. Waxaan maanta isla eegaynaa maxaa dhacaya markii aad laptop ka dhigto dhabtaada. Laptop-yadu waa mid ka mid ah aaladaha ugu casrisan uguna caansan maanta adduunka. Waa aalad la qaadi karo dhallinyaradeenna dambana aanu ku fogaanahay adeegsigiisa iyo weliba dheefsigiisa loona adeegsado siyaabo kala duwan ayna ku tiirsan tahay nolol dadyow badan. Waxa uuna ka koob yahay mucjisooyinka uu casrigaani wato. Haddaba dhibaatooyinkaas maxaa ka mid ah? Kow, waxa uu dhibaato u geysan karaa xubnahaaga taranka. Laptopku waxa uu leeyahay xargo isku xirxiran waxaana dhex mushaaxaya hirarka loo yaqaano electromagnetic waves, qayb ka tirsan oo la yiraahdo electric and magnetic field EMF. Waxa ayna sii deysaa shucaac kaasoo heerkiisu uusan gaarsiisnayn inuu dhaawac gaarsiiyo jirka bini'aadamka. Laakiinse haddii aad dhabta saarto siiba ragga, waxa uu hoos u dhigayaa tirada shahwadda. Si kale marka loo dhigo, cilmi baarayaasha aanu ka soo dheeganayno xogtan waxa ay sheegayaan in wax kasta oo heerkulkiisu ka sarreeyo 35.5 degrees Celsius ilaa 36 degrees Celsius, shaygaas oo la dhigo dhabta ragga laguna sii hayo indoora, waxa ay hoos u dhigayaan oo yareynayaan tirada shahwadda ninka ragga ah. Sida caadiga ah, heerkulka jirka qofka bed qaba 36.5 degrees Celsius ilaa 37 degrees Celsius. Haddaba, u baahnaanta xiniyuhu u baahan yihiin heerkul ka hooseeya heerkulka jirka iyo ku oolanaantooda ay ku yaalaan dibadda xubnaha bani'aadamka iyo in sidaas bani'aadamka labka ah loo nashqadeeyo waa isweydiin alla koodka u diraysa keenitaan warcelin oo uusan weligiis helayn. Waana abuurta Ilaahay oo xiniyaha uu ku abuuray bannaanka jirka oo sida beerka iyo kaliyaha toonna kuma yaalaan xiniyuhu gudaha. Sababtuna waa baahida ay heerkul ka qabow kan jirka kale ay u baahan yihiin. Number 2, waxa ay u horseedi kartaa dhibaato dhanka uurka ah. Isticmaalka laptopka oo daba dheeraada dhanka dumarka waxa uu dhibaato u geysan karaa bacriminta haweenka iyo awoodda ay u leedahay gabari inay taranto si bad qabtana uurjiiftu u dhalato. 3, adeegsigaasi waxa uu ku horseedi karaa xanuuno halis ah. Cilmi baarayaal reer Swiss ah kana socda jaamacadda Basel waxay cilmi baaris la xaqiijiyay ku ogaadeen in laptopka kulul kaasoo la saaray dhabta qof ay u horseedi karto dhaawac maqaarka ah kaasoo marka dambe u sii gudbi kara inuu kansar noqdo. Sida ay dhakhaatiir kale xaqiijinayaan, waxay cilmi baaris ku sheegeen hoostana ka xariiqeen maadaama ay dad ku hayaan laptopskooda meel u dhow xubnahooda taranka, waxaa suurtagal ah in ay keento kansarada xiniyaha iyo kan ugxansidaha. 4, waxay keeni kartaa dhibaato dhanka indhaha iyo hurdada ah. Waqtiyada aad wax qorayso, dheelayso, dheeganayso xog ama aad daawanayso muuqaallo adiga oo si dhib yar laptopkaaga dhabta ku sii haya indoora, falkaasna sii joogteeya, waxa ay dhaawac u geysan kartaa indhahaaga. Taasoo aad aragtay dhalinyaro badan oo aragooda wax ka tabanaya maanta. Waxa ay mararka qaar xanuunkaas indhuhu u sii gudbi karaan in ay saamayn taban ku yeeshaan sii deynta dheecaanka melatonin, kaas oo ah dheecaan qofka ka caawiya in uu gamco. Haddaba inahaas baan ku dhaafayaa dhibaatooyinkaas iyo saamayntaas taban ee uu leeyahay laptopka oo dhabta la dhigtay. Ka hor inta aan ka gudbin muuqaalkan, waxaan kaa codsanayaa mar kale daawadaha qiimaha lahow in aad nagu soo biirtid. Haddii aad Facebook naga daawanaysid, saaxiib, soo dhawow, like-na noo saar page-ka.
haddii aad youtube-ka naga daawanaysidna saaxiibka qiimaha lahow subscribe noo saar. waxa aan markaa kaa codsanayaa daawade in aad muuqaalkan gartiisa u garato. waxaan kaaga tegayaa anigoo Cabdirasaaq Axmed ah, sidaas iyo nabadgelyo.